بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى maanta waxaan eegaynaa qaabka loo fududeeyo tibxaalayaasha isku midka ah ee algebrada. waxaan haysanaa tusaaleena koowaad inagoo isticmaalna like terms tibxaa isku midka ayaan soo xejinaynaa. waxaasna waa halkan waxa noo yaala tibix iyo tibix 2 3 4 5 6 tibxood. sidoo ogsoonay tibxaha waxaa kala sooca calaamadahaas additionka iyo subtraction. وحين سيحجينا تري وحلميدا minus plus 2b plus 3b plus c plus 5c. هذين لباتن ميدينو waxa ka soo baxaya waa kala go'ayaan 2a labaatana waa plus isku dar plus 5b labaatana iyana waa isku darsamayaan iyana waxay noqonayaan kan horkaliisu waa 1 deer falka waxa ka soo baxaysa hadaa horka isku jiro kalayaasha waa 6c. tibixda jawaabteedii qaabka ay soo baxday. kan labaadna hadaan eegno isna waxaan sameynaynaa si lamid ah collect like terms tibxaa isku midkii soo xeji ka bilaabna tan ugu horeysa waa 3xy waxaa la mid ah plus 2xy kana inoo soo qor 4x minus 5x tibxaa isku mid ah xy xy na wixii isku wada mid yihiin soo xejis. therefore labaatan isku darsamay waxay noqonayaan 5xy labaatana way kala go'ayaan calaamadda numberka weyn goorta waxay noqonaysaa waa minus x horka lagu 1 haduu noqdo wala muujiyo saas ay tagaysaa. therefore ka ina jawaabta wax soo baxday inta ay jawaabteedina soo baxday. wabillahi tawfiiq.